hadduu dhalana dadka kala dhaamo waxaan ogahay inaad wada maydheenatiin baan ogahay aniga qofka keliya iga wanaagsan ee iga kii wanaagsan ee reer awdal iga wanaagsan waa maydhan oo keliya ka saaxiibkay cid la isku hadleeyana marka la weydiiyo kolka la weydiiyo yaa ugu wanaagsan la igu dhaa wallaahi been ma sheegi ku dhaa reer dudub la barwadhe ablaha iyagii baa tiinimadeedii baa tiin walaalayaal waxa weeyaan innagu mustaqbalkii dadka baa tiin haddii aad doonaysaan inaad si sharaf lagu noolaataan waxaad doonaysaan codkeenna maanta inaan hal meel marino inaan marino waayo anigu inamadeenna sharaxan ee madaxweyne ku-xigeennadii ima kala xigaan laakiin waxay kala xigaan labada nin ee xagga sare jooga ayaa kii anaa shalay raggii doorta ka mid ahaa wuxuu idhi fadina aad eedaysaan qofku markuu xumaado waa la ciqaabaa soo maa ugaaskeenii soo xabadla lama dhicin ma dadka ugaaskeenii sidaa u kale baan ayeer doorannaa waryaadeen ninka madaxweyne ku-xigeenkii waa madaxweyne ku-xigeen waxba ma gooyo muuse waa muuse hadduu ini ixtiraamiya maalintii dhawaytoole markuu boorama yimidda waxayd inuu apologize ka bixiyo oo yidhaahdo reer boorama u raalli ahaada ugaaskiinnii baan ku gafay muu odhana wuxuu idhi kan meelahan kaa hadlayaan kana yaaba qofkaan idin ixtiraamayn qofkaan idin qiimaynayn qofkaan mustaqbalkiinna aan doonayn idinkuna ha doonina odayaasha hadday meelina geynayaan hadday masiirkiinna keenayaan 30 sannadood bay aan daba socnay soo maaha waar maanta waa maalintii dhallinyarada waa maalintii hablaha waxaan doonaynaa xisbiga soo socda anigu run baan idiin sheegayaa caawa waa weynaado waxaan idhaahdo 100% buu waxaa samaynayaa garan maayo laakiin mid baan waxaan ogahay inuu haddaad kulmiyo si xun u ciqaabtaan isla wuu idin ixtiraami doonaa wuu idinka xishoon doonaa codkiidu wax idinku siin doonaa laakiin haddaad ay kulmiyo waddan isku garab dhacaan adeer isma dhaatiin buu koranaya ilma adeerayaal mustaqbalka innagaa leh haddaad doonaysaan inaan guulaysano jufada reer hebel iyo reer hebel yaa wax ku helay ma qofkoo wax ku helay maanta haddaba aan midnimada tijaabino wadajirka ha tijaabino aan maanta jiilka cusub tijaabino waxay naga maqan cidinagama haysato innagay naga maqan tahay innagay nagu maqan tahay innagaa kala dhuumanayna innagaa kala gudayna ma joojinaa dhaqankaa ma beddelnaa oo ka jooga maanta ciqaab buu mudan yahay ka soo socdaana cod weyn oo kula xisaabtanuu mudan yahay codkaa weyso ma bixinno haddaba waxa weeyaan walaalayaal kaarkiinana yaan laydinka qaadan caaqilna yaanu ku odhanin reer hebel maakaasiya waa reer hebel annagu maalin walba annagoon waa reer hebel odhan ayaan dariinna ka hadalnaa oo dariinna betelnaa oon idiin diidan lahay inaad kaftami weydaan golayaasha soomaalida isugu timaado waxaan doonayaa inaad si weyn u kaftantaan waxaan doonayaa inaad dadka ugu sarreeyaa tiini xagga siyaasaddana inaad kor u kacdaan baan doonayaa inaad yeeshaan baan doonayaa waa madaxweyne ku-xigeenkii 7 weeye madaxweyne ku-xigeenkii 7 weeye kuwa taagan maanta ku-xigeen waa ku-xigeen kursigii daahir ku fadhiyey waan soo celinaynaa markaan midownaa soo celinaynaa madaxweynihii baan soo celinaynaa markaan midowno waxaa inoo ballana wadajir baa inoo ballana waxaa inoo ballana ugaaskeen inaan u argudnaa inoo ballana aad iyo aad baad u mahadsantihiin goor dambaad joogtaan waad daasheen
haddana waxaa soo jacayl anigu ma garanayo waxaa ku kasbaday laakiin waxaan u qaadanayaa inaan idin ilaaliyo qalbigiinna ilaaliyo sharaftiinna ilaaliyo meel magaciinna hoos loo dhigayana aanan habeen istaagin baan intaa idinka la qaadayaa wax kaloo idin gaari karaa ma jiro aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaad i jeceshiin in ka badan baan idin jecelahay